laakiin more meel aad sii joogtid more dhaqankoodii caadadooda aad baranaysid soo hadda haddii laygu yiraahdo gabadhan yartaa dheebaray xirataa mala yaabay because waxaan ogsoonahay wadaanta inay ku badan tahay la darsanayo haanta la soo darsanayo wadaanta la darsanayo inay ku badan tahay oo maalintii 3 jeer 4 jeer wadaamaha la iska darsado wadaamahaasoo kala duwan mid yar mid weyn meesha lagu tuurto taasaan ogahay waxaan ogsoonahay in meelaha wadaamaha loo diro ay iska badan yihiin meeshiiba wadaanta galaysaba la geliyo dalaq lagu siiyo ma fahantay gabdhaha Soomaaliyeed hal meel baa maaragtay soojkeedii asigoo u nadiifsan yahay ka aada laakiin naagtan 3 meel baa maaragtay wadaanta loo diraa 3 meel marka wadaanta loo diro 3 meelba wax walba way isaga dhacayaan wax walba way ku dhacayaan marka ninkan wiligiis malaha gabar Soomaaliyeed oo la soo toltolay oo la jarjaray oo la soo toltolay hadda la jarjarayo hadana la soo toltolay oo ilmo soo dhashay oo la toltolay wiligiis ma arkeen aan u maleena wuxuu aragay meel markuu tagay ilaa waa looga horeeyay ya naadaan arkay waa looga horeeyay asigu kuma horeynine markii wadaantii uu darsado wadaantu meesha iskaga dhaxdhacda bal isaga tiri markii balbal ku tiri muxuu inta qaasan yahay wax walba inay balbalkaas iska yihiin marka waxa waay ma taqaan Amerikaanku waxay yiraahdaan don't jump when you standing over the edge meel qar oo buunde ya oo dheer hadaad korki isaasantahay haboodin waa ina dhacdida laga yaabaa soo ninkan asigoo warhaynin oo wuxuu ku dhaxdhacay bohoshi wuxuu moodaa gabdhihii inay Soomaalidii inay yihiin nin wax ku sheegaa iyo ragoo dhanbo iyo kan wiligiis gabar Soomaaliyeed guursanino gabdhaha ajaanibta ugu hore war anagu manihiin anagu waana la toltolay waana la soo toltolay xitaa gabadheena sunnada waa la toltolaa gabadheena markay dhasho waa la jaraa ay dhalayso markii la jaro ka bacdi waa la toltolaa manihiin meel maartii cunugiyo sidiisa